السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودو نين سيريانا ayaa wuxuu dacweeyay job centerka maxkamadu la koray wuxuu taagan yahay job centerka lacagta anaga aan la siisin anigi ilmahayga iyo xaaskayga way nagu yar tahay ninkan ku muuqdo waa nin Syriana wuxuu nol degan yahay dalkan Jarmalka wuxuu haystaa 7 cunug iyo hal xaas alashan 7 cunug iyo hooyadood iyo asiga lacag job centerku waxay siiyaan bil walba sida la sheegay lacag 6,000 oo euro 6,000 waa 6 ever okay ومع ذلك ninkan maxkamadu lawyer qabsaday maxkamadu ku dacweeyay job centerka wuxuu taagan job centerka lacagta ayna siiyaan oo 6,000 ah aniga 7 cunug way nagu yartahay ma fahantahay 7 cunugan heestaa ma shaqeyn karo marka job centerku inay lacag soo kordhiyaan sidoo kale wuxuu yiri mar dhawan waxaan guursan rabaa naag labaad jidkay ku soo jirtaa marka kan indha adeeg waa dhamay kan asalka hadii la baaro Soomaaliya soo galeysa umaleena okay indha adeeg xoog lacagta job centerka uu siinayo waa laystum waa lacag la isku caawiyo waa ceer okay ومع ذلك wuxuu u heestaa inuu xoog ku leeyahay lacagta markaan isticmaalno wuxuu yiri wax meel noo dhigma baayaba okay lacagta dhan wada bixi wixii dhan qaaliga noqdeen maciishada qaaliga noqotay ilma alaabtooda qaaliga noqotay wax walba qaali way macna marka job centerku inuu lacag ku soo daraa marka anaga inaan finance amtiga dacweyno waa maxkamad inaan fuulno waa xal kale ma laha. Assalaamu calaykum.